sanadku waa 2050. had iyo jeer hirtu waa berisa waxan badan ma jiro oo dunida oo dhan waa mid iska degan, laakiin dalalka islaamku saas maaha oo luqmada eedaanka oo luuq dheer ku baxaysa ayaa jiha walba ka imanaysa. intaanan weyse qaadan iyana waxaan salaada u kiciyay xaaskayga iyo caruurtayda si ay u gutaan waajibaadka uu Rabbi saaray. cibaado Rabbi kadib waxaan kursi gaaban soo dhigtay barxadda gurigayga anigoo quudinaya shimbiraha quruxda badan ee ku dhaqan magaalada Hargeysa. waxaan arkayaa oo ii muuqanaya 2 wiil oo dhalay oo dugsiga u diyaar garoobaya. mar waan farxay, mar kalena waan murugooday. mar waan farxay oo waxaan ku farxay caruurtayda oo nasiib u yeelatay 9 sano waxbarashada aasaasiga oo waliba tayo leh. mar kalena waan murugooday oo 20 sano ka hor waxbarashada aan ka baxay oo 2 shayba gaar la ahayd tiro 12 sano iyo tiyo xumo baahsan. si waxaasoo dhan waxa iga qiimo badan tahay maanta haystaan caruurtayda ee aan u soo samray. marka loo eego manhajkii aan dhigan jiray iyo kan ay caruurtaydu dhigtaan isku mid maaha. waxaana dunida ceebka ah in qaran kale kaga daydo manhajkiisa. waxaana xaqiiqo ahayd in manhajkii aan xilligaa dhigan jirnay ay qoreen rag gaala oo ujeedo ka lahaa maskaxdayada. iminkase manhajkii caruurtaydu dhigtaan waxaa qoray aqoon-yahano Soomaali ah oo wax kale iska daaya wiilashaydu iyagaa samaysta baalashka iyo saabuunta ay ku qubaysanayaan. anna waqtigaygii sodium oo maalin kasta la ii dhigi jiray weligay indhama saarin, hal maado hal abuurana looma dhigi jirin. waqtigaasna waxaan waxbarasho ahaan dhaanay dunida oo dhan 2 wadan oo qura waa Syria iyo Yemen. iminkase 2050 Soomaalidu waxay ku jiraan kaalinta koowaad dalalka ugu waxbarashada fiican Afrika. intaas kadib waxaan u yeedhay 2 wiil aniga oo talo iyo tusaalaba siinaya ayaan ku booriyay una sheegay marka ay flaxaan inaanay ka fikirin waxa dhuuntooda maraya ee ay ka fikiraan maxaad jiilka dambe uga tegaysaan. xujana uga dhigay inaan dhib badan iyo fikir u soo marnay nolosha fiican ay hadda ku nool yihiin. niyad jab iyo moraal xumo badan oo jirtay waqtigeedii ayaa nagu kalifi jirtay inaan waqtiga ugu badan ku bixino maadaysi oo kumaanu dhici jirin inaan wajahno nolosha dhabta. iminkase jiilka jooga kama warwarayaan shaqo ay qabtaan iyo tacliin tayo leh oo dhigtaan. sanadkii hore 2049 waxaan safar ku tegay 4 magaalo oo kala ahaa Berbera, Boorama, Burco iyo Ceerigaabo. waxaan halkaa ku soo arkay arrimay farxad geliya anigoo ugu horeyn sii maray magaalada xeebta dhacda ee Berbera. waxaan ku soo arkay horumar baaxad leh oo dhanka waxbarashada ah. waxaa halkaa ku yaala jaamacadda Berbera of Maray Science oo ay dhigtaan arday kor u dhaafaya 10,000, boqolkiiba 10 ay yihiin ajaanib. waxay jaamacaddani khaas u tahay culumta badaha iyo kalluumaysiga. waxaana maalgelisa dowladda oo markay ardaydani soo baxaan u qaybisa xeebaha dalka si ay uga hawl galaan una xoojiyaan wax soo saarka kalluumaysiga oo iminka kalluunkeenu uu gaadho wadamo badan oo caalamka ka mid ah. intaas kadib waxaan sii gaadhay magaalada Burco oo si la mid ah dalka intiisa kale horumarku ka hana qaaday. waxaanan ugu horreyntii booqday jaamacadda ugu weyn Geeska Afrika ee bixisa culumta xanaanada xoolaha oo ay ku jiraan arday badani oo markay halkan ka baxaan ay dowladdu la wareegto nasiib badana ubadkani. Burco waxaan u sii dhaafay dhanka bari anigoo gaadhay magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag. halkaa markii aan soo gaadhay waxaan galay xasuus dheer anigoo ilmeeyay ilaahayna u mahad celiyay. isla markiiba waxaan booqday jaamacadda macdanaha ee Ceerigaabo. waxaan halkaa kula kulmay arday badan oo culumta macdanaha ka baranaya jaamacadda. waxaan xasuustay waqtigii aan ka baxay dugsiga sare oo aan jeclaa inaan barto culumta macdanaha, laakiin nasiib darro aan dalka ka waayay. farxad anigoo la dhaqaaqi kari la ayaan ugu dambeyn u soo kacay dhanka galbeed anigoo soo gaadhay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. waxaan isla markiiba booqday jaamacadda qadiimiga ee Camuud. waxa ugu muhiimsan ee lagu baranayaana ay tahay cilmiga beeraha iyo tiknoolajiyadda oo Afrika oo dhan ay uga timaado. iskuul ilaa jaamacad dowladda ayaa gacanta ku haysa oo ardaydu marka ay yaryar yihiin ayaa la jiheeyaa. waxaana gobol kasta ka furan iskuul technical ama farsamada gacanta. sidii waqtigeegiina ma jirto cid ka warwaraysa shaqo la'aan. waxaan ka naxay dharbaaxa kulul oo wajigayga qabsatay. halka aan joogaa waa fasalka dugsiga oo aan ku lulooday xiisada macallin u dhigayay maadada taariikhda isagoo ka sheekeynaya dagaalkii labaad ee adduunka. ilayn waa riyooniyay. qorsheegtu waa 11 iyo 45 daqiiqo.
ee goorsheegta Geeska Afrika. Wadanku waa Somaliland oo weli lagu dhigto manhajka dalka Kenya. Waxaan eegay goorsheegta mar kale. Sanadku waa 2023. Waayuhuna waa iyagii.